shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen rugta ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururka warshadleyda ee Soomaaliland ayaa waxay bogaadiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi sidii uu qaabilay in la xoojiyo isla markaana la dardargeliyo warshadaha iyo wax soo saarka dalka. gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibraahim ayaa ugu horeyn isagoo fariintan diray waxa uu yiri waxaan halkan uga mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi cabashadii aan halkan hore uga cabanay ee aan kaga cabanay digreetadii uu soo saaray ee ku saabsanayd cashuuraha iyo dhiirigelinta warshadaha labadaba kaga hadlaysay aan kaga cabanay oo runtii markii warkaygu gaaray si mug leh noo qaabilay la soo dhaweeyay wadaranimo leh isagoo runtii si qalbi furan oo dood wacan leh lagu qaabilay ayaa aan uga mahad celinaynaa sida uu tixgeliyay ganacsatada dalka dhiirigelinta warshadaha waanu nooga garaabay cabashadayadii waxaanu runtii kala korsanay macluumaad fara badan oo labada dhinacba runtii markii hore wada hadal la'aanteedaasi iyo dood la'aanteedaasi aan muxuu ahaa meesha ka maqnaa madaxweynuhuna wuxuu u helan yahay wax soo saarka dalka inuu siiyo mudnaanta koobaad waanu nala qaatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba annagana wixii nalagu xidhay ee nalaga rabay waa qabanaynaa haddii la yidhaah geesta kalena gudoomiyaha guddida warshadleyda Maxamed Sheekh Umar ayaa madaxweynaha uga mahadnaqay soo dhaweyntii uu muujiyay oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada taasoo tusaale fiican oo abu yiri in madaxweynaha ay ka go'an tahay in wax soo saarka wadanka la xoojiyo sidaas daraadeedna aanu halkan uga mahadnaqayno anigoo ka hadlaya magaca boorka ururka warshadleyda madaxweynaha shalay sidaa uu sheegay Jamaal waan dood dheer baan galay waan isu afkaranay guulna way ku dhamaatay wixii aanu ka wada hadlaynay inta noo dhimana waxa yaroo waxa loo saaray guddi marka aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa una soo dhaweeyay si fiican buu noo soo dhaweeyay tixgelin fiicanna wuu na siiyay